madaxweynihii hore ee Soomaaliya ahna xisbiga midowga nabad iyo horumar Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta hoygiisa qada sharaf ugu sameeyay gudoomiyihii hore ee baarlamaanka Soomaaliya mudane Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari. kulanka gaarka ah oo ay yeesheen ayaa waxa ay isku xog wareysteen xaaladda siyaasadeed ee dalka iyo xal u helista arrimaha doorashooyinka 2020-2021. gudoomiyihii hore ee golaha shacabka baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari ayaa tan iyo markii uu iska casilay xilka gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya aanan ka hadlin arrimaha siyaasadeed ee dalka. kulanka maanta Muqdisho ku dhaxmaray madaxweynihii hore ee Soomaaliya ahna gudoomiyaha xisbiga midowga nabad iyo horumar Xasan Sheekh Maxamuud iyo gudoomiyihii hore ee baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari ayaa waxa uu ku soo aadaya xilli dalka uu ku jiro waqti kala guur isla markaana la isu diyaarinayo arrimo la xiriira doorashooyinka dalka. Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari oo ah ruqadda siyaasadeed isla markaana qayb ka soo qaatay labadii madaxweyne ee dalka soo maray kuwaas oo kala ah Xasan Sheekh Maxamuud iyo Sheekh Shariif Sheekh Axmed. Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari ayaa lagu xasuustaa inuu yahay ruqadda siyaasadeed isla markaana in badan kaalin mug leh ka qaatay dhexdhexaadinta arrimaha marka la isku qabsado siyaasadda isla markaana uu ahaa udub dhaxaad isla markaana markii dambe Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari uu shaaciyay in gabi ahaanba uu iska casilay xilka gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya. Iscasilaadda gudoomiyihii hore ee baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari ayaa markii uu xilkaasi iska casilay waxaa ka xumaaday siyaasiyiin waxgarad aqoon-yahano iyo ururada bulshada rayidka Soomaaliyeed oo ku aadan in Jawaari uu yahay qof u qalma inuu ahaado gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya. Jawaari ayaa lagu xasuustaa in mar waliba uu isticmaalayay luqadda waxa sareeya sharciga balse markii dambe ay ka adkaatay in uu xilkaasi iska casilo kadib markii cadaadis xoogan kaga yimid xarunta Villa Soomaaliya.